soo laabasho wacan maanta video wuxuu noqon doonaa video aad u kooban ku saabsanaan doonaa su'aalooyinka mar walba soo weydiisaan aan nigu dhaho mar walba waan iga jawaabin haddana aan weligeed iga jawaabin gabadha isoo qorsa arkay su'aalaha mad ka jawaabtay mar walba waan iga jawaabin badabay marka videogan su'aalooyinkina dhan aan iga jawaabi wuxuu noqon doonaa video isbar aan isku baranayno labadeena marka isku kiimaadeen bahalka yar sii iibsaday dukaanka ka soo iibsaday iyo shamac yar subaxdii wax weyn ma soono aniga nafteeda cid oo ma jirto حتى يوتيوب ليه إنك أفوف إنك يستاهل أنا أفوف سانكو لا بفتح هذا أنا وين أدق صوت تقول كان أنا مسكمي ولا الكيف أسكلاتو إيه ما أنا بخبودي لا بستعمل حديث توية لا بحب بستعمل أوكي لو حنك بلعب هرت إن نسكين برا صوت تاجي كل روح عصبة يوصل كرة اليوتيوب ولنا فيديو في عنو صوفر يستون سكين برا ما نصادقين قاكو أنسبرنا كان سؤالها أنا جودة جيم سألتي بمقعي وسيام كامل صدق عرفتين يوتيوب وحنكو سوكرو ده أدي دوستي تونسنا وحنا شيء لو كنت تبغي بشي سداد waxaan ka ibiday magaalada Jigjiga ee Soomaali galbeed aan ku soo koray aan ku soo barbaaray wasla meeshii ku soo koray aan ku soo barbaaray aan ku dhashay markay taadaydo ahay 5 sano aan yimid wadanka Norway aan eega joogo 3 sano marka ma maleynay waxyaabo muhiim ah inta ka muhiimsanaa يعني إحساس مهم ومساعدة وحكوها يمشي كل لكن هذا سؤالين كلا قبطان سويتيه كأي كان قوضة كلا سؤالها أكيد أتي سويتيسان يوتيوب كده حديثة خلاص كان مقشان ما كان يوتيوب طوبي فيديو أنا قاعدة القاعدة فاميلي وقرحة طناها ميلها مرمرية سؤال كوبات وحاسة قرت مريم سلامة مريم waxay tiri goormaad ka timid wadankii iyo sideed uga timiday saan sheegay wadanka waxaan ka yimiday 3 sano ka hor 2023 ruuxaanta waxaan ka yimiday 2022 November maadaama sanadku gabagaba ahaa waxaan iska dhahay 2023 sidaan uga yimidayna aabahay baa wadankan degan oo ku soo koray asoo da'aysa aad u yartaa wadankan yimiday marka saasaan ku yimid process-kun aad buu dheeraa markaan da'deedu ahayd 12 markaan ahaa baa la bilaabay process-ka inaa la xareeyo sharciga inuu aabo dhaho gabadhayda waan rabaayo waxaas marka adigu 4 sano soo noqo kolba caasimada Addis Ababa aad ka soo noqda adoo sheeko dheer ka bacdi 4 sano ka bacdi baan yimiday wadankan aad buu sharcigiisu adag yahay marka adigoo hataa si sharci ah ku imanaya way hadana process-keeda aad u dheeyaa waxaan su'aasha labaad waxaa soo qoray Mumtaz salaam Mumtaz waxay soo qortay Siham haddaadna dhiirigelisa ka waran أنا والله ديري كلمة باهن مركا إن شاء الله من أن نسبدله عن هير كان ربي قارو إن شاء الله مركا أنا نديري كلمة لكن إيه أنا وديري كلمة باهن بقول كيف ستيت محن سوشيال ميديا كتاعه وديري كلمة صار أنا جو بدأ بلعبنا نفتح إذا كبدله مركا إن شاء الله مرة نسبدله من فوقان تونتو مركا ساني وانين تونا عاش الضحات وحان هيستا question waxay tahay hooyada maad la nooshahay 2 goormaad Afrika ka tagtay su'aasha labaad ka jawaabsan goortan ka tagay Afrika waa 2023 hooyada maad la nooshahay maxaa la noolahay eedaday
سؤال saddexaad waxaa soo qabay Abubakar waan ku salaamay Abubakar wuxuu soo qoray سؤال af carabiya wuxuu yiri وأنا كمان أشاهد هذا الشخص دوبامي كافيين إنه شخص مثالي لكن عندي سؤال كيف تعلمت العربي wuxuu yiri anigu nin baan sheegay videogaygan jeclay inaan daawado waa Sacuudi marka wuxuu yiri sidaad u baratay ninkan anigu waan jeclahay waan taageeraa laakiin sidaad u baratay af carabi waxaan ku bartay maseer You're joking. You're joking. أنا dadka waxaan ahay ku bartaa mise dadaala markay pressure ku dhex jiraan mise ay arkaan in dadka kale ka fiican yihiin mise ay arkaan in dadku ay dhaafeen mise adu cadaadiskan wax ku bartaado marka anigu markaan yaraa meelaha aan ahaa 11 laba sano baan xal soo joogi jiray habareertay macaan marka habareerta waxay dhashay caruur aan isla egnahay mid gabadh ani ila ego 4 bilood bas iga weyn adna haday daawanayso ku jeclahay adna iyo dhowr kale oo isla egnoon kala weynaado marka laba sano la joogi jiray mid af carabi aqooni ma jiro kaartoonkan daawan jirnay horta MBC2 Cartoonito waxaa dadka garanaya Space Tune marka wax af carabi maan aqoon waan yaryarayn oo iska daawan jirnay laakiin marka laba sano marka la noolaa baan ka bacdi baa hooyaday baan u tagay marka waxaan iman jiray Eid waxaas marka Eid markaan soo noqday umaan arkay 5 wayaan 5 baa anaa 6 ku ahaa يعني caruurtan habroodaagta ahayno af carabi ku wada hadlay aniguna inta u dhex fadhiyo xabad ka fahmin marka inta saaw oon maseere waan dhama inta af carabi barataan baan baranin soo xasuustaa maanta dib baan u noqday marka waxaan daawan jiray marka musalsalada Fanbroch iyo waxaas waan joojiyay ma Fanbroch Soomaali wax dhan waan joojiyay ka bacdi kaartoonkan bilaabay inaan barto laba sano ka bacdina waan bartay af carabi marka saasaan ku bartay af carabi laakiin sideen u bartay kaartoonka iyo kaartoonku marka ma helin ruuxan luqad ahaan aan la practice gareeyo soo iga fahamkaygu waa 100% qoraalkaygu 100% akhrinta 100% hadalkayguna waxaan dhihi karaa 70% maadaama aanan isticmaalin marka hadda waxaan isleeyahay lacalla Sacuudiga tagto iyo waxaas markaas yani ku dadaali kartaa inaad leen dadkii u dhashay luqadda halkaa jooga ayay su-aasha xigta waxay leedahay afka ma 1 year baad ku bartay ka bacdi baad iskuul gashay waxay ka hadlaysaa luqadda Norwejiga ma yani hal sanaad ku bartay ka bacdi baad iskuulkooda caadiga aaday saas wayaan caadi ahaan laakiin anigu waxaan dalbaday inaan 2 sano aan ku barto markaan imatay 2023 waxaa la geeyay dugsi caadi ah oo dadka wadanku u dhashay ay dhigtaan oo waxaa la rabaa maadaama weli da'daadu yartahay dhagaha ugu fudud yihiin inaad iskala barato luqadda anigu waxaan imitay sanadka saan ii sheegay gabagabadiisa 2022 gabagabadiisa marka 2023 aan iska dhaxlay anigu waxaan imitay bishii 2022 bishii 11aad marka sanadka ayagu iskuulkii u bilaamaday termkii labaad baa la gelayaa marka waxaan ka gaaray 3 bilood marka iskuul caadi oo lagu talagalay caruurta 16 sano ilaa wixii ka weyn caruuran dhinaado dhalinyarada ka bacdi marka sanadkii koowaad dhameeyay aan wadanka joogay sanad baa lagu yiri waad tagi kartaa dugsi sare oo luqadaada way fadhidaa marka anigu anaa dalbaday inaan sanad kale ku cishto sababtoo waxaan isii luqadda mar walba xoog sii saarto dareento inay kuu fadhido mar walba aad stress aad marka yani dugsiga caadiga tagto dadcadoo dibluga u tagaysa cid ku dhihi ma jirto maan ku caawinaa maan fahantay ma aayar baan sababta ruux speed waalan bikoodayga ruux Soomaali yaqaana wadamada kale markay maqlaan saan af Soomaali ugu hadlo waxay dhahaan xoog badasho laakiin anigu ma dareemin saas oo kale aad u ilahay marka waxaan isrintaasi haami tagi lahay iskuulka oo luqad durba xoog u hadlaya waliba waxaa lagu hadlayaa af jajab ah ileen
luuqada buugaagta ku taalay luuqaday dadku bulshada ku wada hadlaan way kala duwan tahay. waxaa dhalinyarada luuqad gaar ay ku hadlaan, dadka waaweyn luuqadana dhihina si gaar ay ugu hadlaan. marka waxaan isiri intaad aad laba culays kugu noqon lahayd inaad fahanto cashiradii iyo wixii iyo luuqadana aad xoog ugu hadleen aayar sanad kale oo si adkaysato kusii darso. macalinkayga wuxuu yiri haddaad rabto waa go-aankaaga. sidii aan sanad labaad ku qaata marka eega dugsiga sare sanadkii koowaad baan dhigtaa. yes iskamana geli kartid marka qaarkood su-aasha si fiican ii fahamsiin. wadanka haddaad timid oo hal sano joogto kama dhignin inaad iska geli kartid iskuulka. dhibca lagu galayaa, waxaana lagu galayaa luuqadaada eegayaan. marka iskama kaa fasaxayaan. marka anigu sanadka mid aan dhameeyey way fasaxeen. waxay ku dhahen luuqadaadu waa luuqadaad ku geli karto iskuulka, waad fahmaysaa, waad jawaabi kartaa, adaa go-aanka iskale. marka anaa doorta, laakiin ruux walba iskama geli karo. dad badan oo iskuulkaan dhigan 3 sano dhiganayaa jira. su-aashan xigta Umayma ay soo qortay. ku salaam Umayma. waxay tiri your honest experiment about Norwegian people. waxay tiri waxaad kala kulantay dadka Norwejiyiinta ah mise fikradeed ka haysataa. taasi kale nigu sharxo. horta dadka Norwejiga waa dad waxyaabo xunxun way haystaan, waxyaabo fiican oo jiraan sida bili-aadan weeyaan ayaguba Soomaa. laakiin waxyaabaha fiican baan mar walba isoo jiita oo dadka ma ihi eega waxa xun. marka qaarkood waan ka fikiraa, laakiin inta fiican baan walba isoo jiidata. waxyaabaha horta aan aad iyo aad uga helo waa dad aad iyo aad u degan. kamana hadlayo dhalinyaradooda sababtayga anigu kuwaan la dhigto 2 sanaan ka weynaa galaaska waa 16 jiro, ana 18 baan ahay. marka 16ka sano jiro ma ka hadlayo. yani dhalinyarada caadiga maskaxdeedu baaloqay 24 jir waxaas. dadkani waa dad aad u degan. ayaga macalimiinteena markaan u fiirsado 100 jeer haddaad su-aal weydiiso ku tiraa macalinkaale tan ma fahmi, macalinkaale iska badaa inaad maanta dhan soo celisay hal su-aal baad 100 jeer weydiin muu xanaaqiyo. xataa waxaa aniga marka qaar kula yaabaa macalinka marka u yeerto jilibkiisa maaragtay dhulka dhigan suu adiga markaad miiska ku fadhiyo jilibku dhulka dhigan suu hoos kuugu soo tago kuugu sharo. ana kula macalinkeena hal jeer haddaad su-aal weydiiso waa xanaaqidin macalimiinta wadankeena. taa horta waa kow aad bay u degan yihiin. waad dareemi inaad lagu respect lagu siinayo si arday ahaan welibana adagoo dhalinyara. waxa labaad ay soo jiitay waa siday family ahaan u wada nool yihiin. waa dad kala dambeeya. family ahaan waxaan ugu jecelahay waa waalidku aad bay xuquuqda ilmaha u ilaaliyaan. anagu wadankeena xooga waxaa la saaraa xuquuqda uu waalidku leeyahay. taana laba isma weydiinayse waalidiinteena adeecno waxay ka mid tahay yani waa rukun aad u muhiim ah. laakiin anagu wadankeena waxaanan xoog aad u saarin xuquuqda caruurtu leeyihiin. nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri kiina weyn kiina yara ixtiraamo, kiina weyna ixtiraamuuna dhihin bas kiina yar ka weyn bas ha ixtiraam. ixtiraamkana waxaan ka wadaa waalidiinta wadankeena saa anugu intaan arkay aad bay ilmaha hoos bay u eegaan. yani eega kaba soo qaad ra'yigaaga dooni inaad 5 waalidoo 5 yani habaryartaa, hooyada, adeerka iyo abtiga isla fadhidaad damacdana ra'yigaaga dhiibto hoos baa lagu eegayo xalli waad yarta. halkan ma jirto. ruux walba maqaam sharaf leh buu leeyahay. caruurta waa la dhageystaa, waa laga warquraa. waalidiinta aad bay uga warhayaan iskuulkooda inay xataa asxaab haystaan in kale inay iskuulka lagu caayay in kale inay xataa meelaha markay iskuulka marka la dhameeyo waxay aadeen football, dad handball bay soo ciyaaraan. kuwa iskuul xataa halka inay si fiican ay haystaan bulsho ku hareereysan oo
ay dareemayaan amni waa la weydiini. Marka taas waa saan waan igu dheereeyay, laakiin waxa kale ay soo jiita waa say loo tixgeliyo caruurta iyo guud ahaan say u kala dambeeyaan. Yes, I think that's all I got to say. Inshallah mar walbaan sii weynaanana su'aalo ka badan waa isii weydiin kartaa iga videoga haddaad isleedihiin su'aalo muhiima maana ka jawaabin. way soo weydiin kartaan su'aal videoga soo socda ka jawaabin. Mar walba saas anigu dhaha, laakiin we never know.